wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa ay ku soo waramayaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir in ay ka dhacday arrin naxdin leh kadib markii degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir wiil iyo gabar ku dhaqan halka ay isku dhageen. wararka ayaa waxa ay ku soo waramayaan in xaafad dhacda degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir wiil iyo gabar ku dhaqnaa halka ay isku dhageen. dadka deegaanka ayaa waxay xaqiijiyeen in mar qur ah saaka ay ku soo kaceen wiilka iyo gabadha oo isku dhagan isla markaana aanan kala foqi karin. ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxday laamaha ammaanka culimada Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan arrintaasi. geesta kalena ma jirto ilaa iyo haatan cid si rasmi ah uga hadashay arrintaasi. qaraabada iyo qoysaska u dhow gabadha iyo wiilka arrinta mashaqada iyo mucjisada la ay qabsatay ilaa iyo haatan dhankooda ma aysan ka hadlin. sidoo kale qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa bartooda gaarka ah ee Facebook waxay ku soo daabacayeen warbixino la xiriira arrintaasi. sanad ka hor ayay ahayd dalka Kenya arrin midaan la cayn ah marka ay ka dhacday.